maanta waxay noo ahayd maalintii saddexaad oo aan shaqaynayno. qaybihii hore waxaan ku guda jirnay doorashadii guddiga in uu guddoonkiisa doorto iyo mar labaad in guddiga uu isku qaybiyo laba qaybood oo guddi hoosaad kadibna guddi hoosaad kasta uu shaqadiisa gaarka ahayd uu qabto. maanta oo aan qabanay runtii hooshii ugu adkayd waxaan ugu dambayntii aan soo saarnay ilaahay mahdi habraacii ay u mari lahaayeen musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamayo iyo qaabkii mataqaanaa isku diiwaangelin lahaayeen oo aan shaacinay. waxaan rabaa inaan akhriyo dukumentigii ay guddiyadu soo saareen oo runtii ka kooban 9 qodob oo aan rabo mid inaan warbaahinta ugu soo gudbiyo. ujeeddada waxa ay ahayd habraaca diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. waxaa lagu wargelinayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ay soo buuxiyaan habraaca diiwaangelinta hoos ku xusan. kow, warqadda ugu horeyso ee laga rabo waxay tahay ID card ama baasboor. 2, warqadda codsiga musharaxnimo. qofka musharaxa ah ee noo imaanaya marka ugu horeysa waxaan ka rabnaa warqad ay ku caddahay musharaxnimadiisa inuu noo keeno. qodobka 3aad, warqadda soo jeedinta musharaxa. musharaxa waxaa laga rabaa 20 xildhibaan in ay soo jeediyaan inuu u qalmo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ama guud ahaan wadarta xildhibaanada aqalka sare ama senatarada aqalka sare ee laga soo doorto hal gobol inay soo jeediyaan. waxaa kaloo laga rabaa oo lambarka 4aad ah warqadda caddaynta buuxinta shuruudaha musharaxnimo iyadana waa laga rabaa. number 5, 400 oo nuqul oo ku saabsan barnaamijka doorasho oo daabacan ayaa laga rabaa ka hor maalinta hadal jeedinta ayaa laga rabaa. nambarka 6aad waxaa laga rabaa taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa inuu keeno. 2 sawir oo testara waa laga rabaa, waa qodobka 7aad. waxaa laga rabaa warqad caddaynta lacag qabashada lacagtii uu ku soo shubay bangiga dhexe ama accountka bangiga dhexe uu ku shubay. warqaddaas ayaa laga rabaa inuu guddiga u keeno. 9, warqadda aqbalaadda iyo u hoggaansamidda habraaca iyo natiijada doorashada. warqaddan waxay taallaa xafiiska guddiga diiwaangelinta ayay taallaa. qofka musharaxa ah waxaa laga rabaa inuu warqaddaas uu saxiixo. haddaba musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa lagu wargelinayaa in ay soo dhammaystiraan dhammaan shuruudaha kor ku xusan si loo guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimo. intaan waa habraacii uu mari lahaa qofka murashaxa u ah jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. aad ayaad u mahadsantihiin. waxaa ku saxiixan guddoomiyaha guddiga senatar cabdiqani geelle maxamed.